kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiin caalamka meel walba oo aad ka joogtaan iyo waqti walba oo ay idii tahay oo wacan halka aad nagala socotaan ama aad naga daawanaysaan waa channelkiina Siriicaad ku soo dhawaada mar kale iyo video hor leh waad ku maadsan tahay la joogaaga ee fadlan hadii aad channelka ku cusub tahay oo ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato ama aad soo gaardo subscribe noo saar kambareelkana furo kuna soo dhawaaw si aad mar walba u hesho muuqaaladii ugu dambeeyaan soo galino hadii aad horay noola joogtay oo aad ka mid tahay teamka Siriicaadna waxaan ku leeyahay aad baad ugu mahadsan tahay dhiirgelintaada iyo garab istaagaaga maanta waxaan idin hayaa sheeko aad u xaraabo badan ama aad u qosol badan sheekadaas waxay tahay ninkii odaga ahaa ee Sharma Boy oo aad wada taqaaneen ayaa waxa uu ku soo laabtay magaalada Muqdisho markii uu sidan ugu soo laabtay markiiba waxa dhacday amaba la isla hadal maraya in ay Najma Nashaad ay kulmaysan sawirkanba idinkaga muuqdo haddaba ha kulmaan maxay tahay malada iyo sababtii ay hadda loo soo hadal qaadayo kulankoodi waxa loo soo hadal qaadaya fanaanka iyo fanaanada waxa lagu wadaa in ay ilaa iyo bacda Ramadaan meesha ay joogi doon oo hawsha marka hore ay u tagtay xamarna ay ahayd in ay show ku soo qabato aroosna kaga qayb gasho laakiin hadda xaaladda way ka bedelan tahay oo waxa ay rabtaa in ay hees la qabsato ninka magaalada kala shitay xaqiiqda marka laga hadlayana magaalada wuu kala shitay oo way iska muuqataa iyadana waa xidigad aad iyo aad ay Soomaalidu u jecel yihiin oo xidigad aan la xaqiri karin weeyaan laakiin hadii ay kulmaan showgaas waa lagu wada balansan yahay waa la badan yahay kii kale Djibouti waa laga sugayaa kulli isaga waa qof waana arki kartaan oo maalmahan waxa calankiisa ayaa babanayo Sharma Boy calankiisa ayaa babanayo laakiin showgan Muqdisho ee loo balansan yahay ciida oo lagu wado ayaa waxa ka qayb galaya sida aad maalmahanba ogeedeen Najma Nashaad iyo waxa aad isugu xirtay oo run ahaantii iyagaba isgarbaha isku haya maalmahan dambe inantii shaadi sharaf saaxiibadeed ahayd ee laakiin iminka kali nool noqotay ee Nadiira Nayruus run ahaantii showgan sidiisa badan waxa lagu wadaa in ay fanaaniintii badnayd ee tagay magaalada ay kulmay qabsan doonaan iyaga laakiin waxa hadda dib kaga soo biiray ama ku soo biiray Sharma Boy dadka si aad ay isla hadal hayaan ama ay sheegayaan showgan inuu noqon doono mid taariikhi ah sababtana waxa ay tahay in hadii showgani oo dhaco oo uu ka dhaca Muqdisho waxay dhici doonto fanaaniin aanan abid kulmi lahayn in ay ku kulmaan showgani fanaaniin fara badan ayaa ku sugan magaalada wararka qaarna waxay sheegayaan in xitaa uu imaan doono dawayaaqada ama bartamaha bishan aan ku jirno Ramadaan ninkii isna maalmahan ay Sharma Boy farti iyo farantiga isku ahayeen ee maslax mideey hadii ay dhacdo in showgaasi oo magaalada uu ka dhigmo ama uu ka qabsamo waxay noqon doontaa in ay ku kulmaan xidigaha sanadkan aad ka loogu jecel yahay markii aan ku leeyahay waxa kamid ah saddex qof oo run ahaantii laga yaabo mid kamid ah inaad taageero u tahay ama laba mid kamid ah inaad taageero u tahay xidigahaasi meesha ku ballansan ee kulmi doon waxa kamid ah xidiga weyn ee aad wada taqaanaan Sharma Boy iyo xidiga weyn ee aad taqaanaan ee maslax mideey Nadiira Nayruus iyo Najma Nashaad waxa kale oo ku jira Khalid Kamil oo aad wada taqaanaan heesta meesha way shidan tahay ciid waxa malaynaysaaba in ay fanaaniintani ay yihiin kuwa isla jaan heli doono waxayna si aad ah run ahaantii aad maalmaha saaxada oo fanka aan uga dhax arkaynay iyadoo fanaaniinta ay sameysanayaan isgruubeysi waana arin qurux badan waana arin lagu taageeri karo waana arin farxad gelinayo waana arin aan bogaadinayno waana arin aan jecelnahay waayo hadii laba kalaba la isku fahmo ama laba walba oo isku mehnada isfahmaan waxa dhici doonto in ay wax qurux badan inoo soo baxaan waxaanan ka sheegan doonin inay noo soo baxaan dadkana qulubahooda markasta isku soo dhawaadaan wax walba ay sameeyaan waxay noqon doontaa wax aad u qurux badan oo qofka ka dambeeya uu ka dhaxli karo wanaag hadii ay shalay ay fanaaniinta ahayeen kuwa isnacab oo aan arki jirnay in ay maaragtay meelaha ay kili showyaal ugu qabsanayaan maanta waxaad moodaa inay runti fahmeen maanta waxaad moodaa inay isbargarteen maanta waxaad moodaa in ay isfahansan yihiin maanta waxaad moodaa in ay qalbiga iyo laabta isku wada hayaan maanta waxaad moodaa
in ay Soomaalida in badan wax soo fahmayso waxa taas marqaati kaaga ah adigan hadda idaawanayo waxa laga yaabaa fanaanka aad taageertid inuusan kugu reer ahayn fanaanka aad taageertid inaysan waxba kugu galin fanaanka aad taageertid inaad isku magaalo aan deganayn taasna waxay nooga turjumaysaa ama aan ka dheehan karnaa in ay dhamaatay qabiilaysigii iyo qurankii dadka maskaxdoodii aad ugu jiray qabiilka waa shayga kaliya ee ragaadiyay ee Soomaalida u diiday in ay isfahmaan ama in ay xataa aqliyan oo qofkan walaalkii qofka kale xumaha ka qabto in ay dadka oo dhan ay dhinac iska soo marsadaan inta xun way ismarsaneed inta wanaagsan way ismarsaneed laakiin maanta waxaan arkaynaa ama aan ku farxi karnaa ama aan sheegan karnaa in fanaaniinteena ay si xoogan ay isugu dhawaadeen kullay ma ahan inaan bogaadinayo laakiin qof waliba waxa uu haysto ku faanaa anu waxa ku faani karaa maanta adigan idaawanayo oo Soomaali ah oo afka Soomaaliga ku hadlayo oo kugu faani karaa fanaaniinteen waa inaan ku faanaa kuweena youtuberada waa inaan ku faanaa cid naga qaldanta waa inaan saxnaa wax waliba aad arkayso oo hortaada imaanayo waxa qurux badan adiga ayay ku anfacayaan adiga ayay dhaxalkaaga yihiin beritoole waxa naga dambeeyay jiil kale haddii ka waran kuwa annaga inaga horeeyay xumaan nooga tageen haddii kuwa annaga naga dambeeyana aan xumaan uga tagnaa maxay noqonaysaa kuwa ka sii dambeeyana inay iyaga xumaan uga tagaan marka taasi maanta waxaad moodaaba fanaaniinta inay soo gabagabeeyeen in ay sii dhameynayaan in ay naga sii dhamaanaysa qabyaaladii fankeeni ha hormaro aad baan u jecelnaa fanaaniinteena mar walbana waxa rajeenayaa in aan u muujina garab istaag in aan u muujina inaan jecelnahay in aan u muujina in ay isla jirkoogii ana farxad weyn inoo tahay dhowr jeer oo horena waxaan u maleynayaa inay iga maqasheen labada fanaan ee Maslax Mideey iyo Sharma Boy anoo si aad u amaanayo wax kale kuma amaanayo dhalasho inagama dhaxayso waxa inaga dhaxeeyay dhiig Soomaalinimo waxaan jecelahay maanta ayna ilayhiin fanaaniinta noqdaan ama dad kale ha noqdaan qof walba oo jecel qofka Soomaaliyeed inuu horumar sameeyo in uu hiigsiga rabo uu gaaro qof walba uu noqdaa anu waa jecelahay waana ku soo xusay janalkayga sababta ugu soo xusayna waxay tahay waan ka soo daalnay xumaanta iyo tafaraaruqa maanta waxaan u baahanahay in aan si qalbiga isku fahmo in aan niyadda iska fahmo in aan niyadda iskala socono sida ay fanaaniinteeni maanta ay noogu fureen ayaa waxaan rajeynayaa youtuberadana inay isku mid noqdaan isku niyad noqdaan cid qaldanta inaan qabsan karno cid saxan inaan taageeri karno wax walba oo wanaag inaan annagana horseedi karno haddii annaga nagala arko horta midna yeena sugi Soomaaliyeed in annaga oo dad kale malaa'ig nooma imaanayso wax nooma sheegayso waa annaga inaan is saxnaa waa annaga inaan is garab qabsanaa waxaan leeyahay fanaaniinta ku balansan ama ku kulansan xagaas Muqdisho waxaan leeyahay mar walba waxaad muujisaan in aad samaysataan xitaa midow يعني دلت فنانيتكم مديسينهم مر والبنا أتسي اسكسي دواتنا ومر والبو أظهر مرسي جاريسان وحنا ذن ليهاي لما أنتين غير سريعات هالنقطة سومالوين مال والبيت جوكتو عالم كمال والبيت جوكتو سومال وحنا ليهاي قوليستا عزي شرفنا نكون ولادا وحنا رجينا انت حنا إن أن هاجاكسنو انت وناكسنا إن أن هرمر ورجينا أديات بعد ما سنتين انت فيديو جامد لمدا أكو كل مدوننا فكر كاغوا حر في أمان